السلام عليكم وصباح جيلال أما وينتر aadna u qabow dadka dhan waxay u yaacayaan tareenka dhankiisa qof shaqada u degdegsan yahay qof baa maalinta shaqada ugu horeysay bilaabaya qof baa leeyahay ballan bukaan mid wuxuu u socdaa qof sanado badan aysan saraag inuu markuu u horeysay la kulmo qof walba dabcan saa qiyaasi kartid qofkii meel tareen laga raaco ama meesha basaska jaamacad laga raaco subaxii baa garan kare qof walba wuxuu ordayaa hal jiho hase yeeshee dadka saas u yaacaya agtooda geeska tareenka waxaa taagan ama subway agtiisa waxaa taagan nin fiyoolin garaacaya waqti badan ayaa gudbaya 10 daqiiqo ayaa gudubtay cid fiirisa ma lahan dhowr 10 daqiiqo kala gudubtay gabar iyo wiil yar soo istaagay way fiirsan cabaar way ka gudbeen haddana cunug yar haddana soo istaagay haddana hooyadiisa malaha marka iskuul u waday ayaa gacanta qabato la oraday hase yeeshee ninkii fiyoolinka garaacayay dadkii meesha yaacayo dhan ma aysan garanayn kulligood mana aysan fiirin kuma mashquulin dabcan meel xaalad noocaas oo kale lagu jira yaa lagu mashquulaa ama la fiiriyaaba hal qof marka laga reebo hal gabadh ayaa soo istaagtay isku day in sawir la gasho salaanto una mahadceliso runtii baarjahaas ama biiska yarka oo meesha ka garaacay runtiina uga mahadcelisay waxa isweydiin doontaa qofkan ka shahadlaysaan ama noo sheegaysan wuxuu yahay meeshaan dadka noocaas oo kale sabwayga ay joogaan maxaa keenay fiyoolin saacadaas oo kale laga yaabo inuu tuugsaday laga yaabo in wax badan joogan dabcan waxa uu garaacay 45 daqiiqo oo kaliya wuxuuna aruriyay $32 lacag u dhiganta oo lacagtaas waliba half ka mid ah ay ka imaatay halkii qof oo gartay ninka idin sheegay waxa loo yaqaanaa Joshua Bell waa violinist violin garaaca weeyaan oo ama tuma ama adeegsada oo waliba aad caan u ah fiyoolinka oo meesha la taagnaa markaas qiimaha waxa uu dhigataa $3.5 milyan fiyoolinta kaligeed oo meesha la taagnaa waxa uu garaacayay ama biiska oo markaas garaacayay ama riwaayadu markaas ama garaacayay waxa loo yaqaanaa Bach oo ah mid oo maalmo ka hor isla gobolka Boston oo isla Mareykanka ku yaala oo markaas concertka meesha ku bixinayay tigidhkiisa oo noqday sold out yani kala dafay waliba tigidhka markaas waxa uu yaraa $100 something like that waa la daf intaas oo kumanaan kun oo qof ayaa ka soo qayb galayay waa maalmo ka hor tigidhkaas waa la kala daf ninkii 3 maalin ka hor Boston theaterkeeda tigidhkiisa lagu kala dafay maanta New York oo shirka magaalada kale ka sii weyn dabcan inuu subwayga soo ku garaacaya maanta fiyoolinkii qiimaheedu intaas u dhigmo biiska magacaas leh asaga ninka magacaas leh dadku saas u yaqaanaan in cidna u soo jeesan wado lana soo fiirin waayo maxaa oranaysa waa sabab karta dabcan meesha marka joogo dadka inay soo garanayaan baa dhici karta waxa laga yaabaa waqtiga marka uu joogo waqtiga saxda ah iyo goobta saxda ah inuu joogo waxa laga yaabaa adoo qiimka ama qiimaha soo kor u leh in dadkii uu qalmay ama istaahilay inay runtii ku dhageystaan ama istimtaac sameeyaan aysan ahayn marka hadii goor isweydiiyay markaad meel joogtid oo aad is oranaysid bulshada qiimaha ku dhaxleeyahay ama aad rabtid inaad soo kordhisid oo lagu dhageysan waayo lagu soo jeesan waayo ogow marka qaar dadku waxay raadinayaan qiimo iyo qaayad ma ahan marka qaar waxaas oranaysaa magac iyo maamuus oo kaliya marka mar walba waxaa muhiim ah inaad ku dadaashid inaad joogtid meesha aad qiimaha ka leedahay dadka qiimaha ku siinaya iyo meesha waxa aad wadatid ama aad xambaarsan tahay risaalada rabtid inaad gudbisid inaad goobta ku sugan tahay ogow Joshua Bell waa nin maanta hadii magaciisa laga sheegi lahaa meesha dad masaf soo gali lahaayeen laakiin maadaama dadku aysan ku mashquulin aysan fiirin qiimo weyn uma laha marka sidaas oo sigal mid ah dad badan ayaa jira agaaraha ku hareeraysan asxaabtaada ehelkaaga dad aan ka fogeyn oo runtii qiimo badan leh laakiin maadaama markaas ama waqti xaadirkaas aan attention badan helayn markaas xaaladda ku jiraan la dhageysaneen laga yaabo in iska hormarmarayo meeqa kumanaan cuqala ah genius ah aad adkiyo ah maanta agaaraha yaacaya balse aan qiimahooda garan hadii godadka ugu hareeraysan asxaabtaada baraha bulshada waxa ahaadaan asxaabta nolosha adiga aan kulanta aadaan qiimahooda ogow adiguna mar walba waxaad ku dadaashaa meel aad qiimo kala leedahay joogtid wassalaamu calaykum